madaxweynaha Suuriya Axmed al-Sharac oo maanta wareysi gaar ah siiyay wargeyska Sacuudiga laga leeyahay ee Al-Majalla waxa wax laga weydiiyay heshiiska ay Suuriya la gali karto Israa'iil in uu yahay Suuriya ay qayb ka noqon karto barnaamijka Ibrahim Accord oo ay heshiis Israa'iil iyo dalalka Carabta oo ay mar horeba wadamada Carabta ku biireen isagoo arintaas ka hadlayay waxa uu yiri madaxweyne Axmed al-Sharac waxa uu taagan yahay heshiiskaas waxa galay dalal aan xuduud lahayn iyo dalal aan laga haysan dhul Suuriya xaaladeedu waa ay ka duwan tahay wali waxaan ku jirnaa gacanta Israa'iil dhulka Suuriya sida Golan Heights sida darteed suurtagal ma aha in aan koobiyeyno qaabkaas qaybna kama noqon karno ayuu leeyahay Axmed al-Sharac marka hore haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad rukumato janaalkan oo subscribe soo dhahdo sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa inaad like comment iyo share soo dhahdo mahadsanidin dhammaantiin Trump ayaa sheegay in ay tahay wax la buunbuuniyay in beerta TikTok oo laga leeyahay Shiinaha ay khatar ku tahay amniga Mareykanka wuxuu cadeeyay in ay kordhin doonaan markasta muddada ay sii shaqeynayso bartan ilaa ay ka suurta gasho in shirkad Mareykan ah ay iibsato walow hore ay Shiinaha u cadeeyeen in aysan marnaba iibin doonin TikTok dhanka kale aqalka cad ayaa toddobaadkii hore bar rasmi ah ku yeeshay TikTok oo uu Trump u arko in ololihiisii ugu dambeeyay guulaha uga gaaray ay bartan fududeysay dhinaca kale haddii aynu eegno Ruushka ayaa u daabuli doona dalka Venezuela diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shaahid 131/136 kuwaas oo fulinayo weeraro isqarxin ah si ay sare ugu qaadaan awoodda weerar ee Venezuela haddii uu Mareykanka duulaan ku qaado sida uu sheegay kanaalka militariga Ruushka ee Raybar